السلام عليكم وعلى خدام ويلكان waxa uu leeyahay xiriir ayaan waxa la lahaa gabar xiriirkaas oo ku dhisan xaraan ayaan sameyn jirnay waxa uu leeyahay xaaladaas waxaan bilaaway anigoo da'deedu ay tahay 15 walaal sawiro waxa uu bilaaway asagoo 15 jir ah inuu saaxiibo inuu xumaan sameeyo waxa uu leeyahay waxaan ah mid xanaaq badan aan dulqaad lahayn ilaa uu cumrigii gaaray 33 sano halkaan ayaan ka bilaaway qisadii xanuunka badan marmar ayaan waxaan u safri jiray wadanka Thailand halkaas oo aan ku bartay saaxiibo aad iyo aad u xun asxaabtaas xun aan la saaxiibay waxaan kala dhex baxay gabadhaas waxay ahayd gabar aad iyo aad u qurxoon laakiin anigu danka ma lahayn waxaan ka rabay in aan ka zinaysto xaraan ayaan la sameyn jiray xaaraantaas iyo waxyaabahaas aan sameynayna agteedu waxay ka ahaayeen caadiya gabadhii sidii aan xumaantu u sameynaynay waan waayay waan raadiyay si kasta u raadiyay waan waayay gabadhii waxa uu leeyahay maalmo kadib ayaa waxay soo wacay kuwa wax raadiya waxay ku dhaheen meebelba waxaan dhahay haa waxay dhaheen inoo ilmo waxaan dhahay waan u tagay waxay ugu dhaheen ma taqaanaa heblo waxaan dhahay haa waxay ugu dhaheen ahwi waxaan dhahay ma aqaan aniga waan la ahay waxaan dhahay maxaad iga weydiisay waxay ugu dhaheen waxaan soo gaartay in la yahay mushkiladda ugu weyn ee jirtana gabadhaas waxay qabtaa AIDS maxaa dhahdeen waxay qabtaa AIDS waan ka soo tagay xaafadii ayaan imaaday runtii aad iyo aad ayaan u walwalay habeenkii maana seexan waxaan isweydiiyay ma dhakhtar baad aadaa mise waa iska daysaa runtii way ugu laalaabanaysay waan isweydiiyaa ma dhakhtar baad aadaa mise waa iska daysaa markii aan maalmo seexan ayaan waxaan go'aansaday inaan aado dhakhtar waxaan aaday dhakhtarkii baaritaano ayaa lagu sameeyey waxay ugu dhaheen 10 bari kadib ayaa jawaabta helaysaa waxaan ku dhahay goor ma heli karaa waxay ugu dhaheen ma awoodno waan iskaga soo tagay xaafadda ayaan imaaday runtii cuntada ayaa dhadhami weyday waxna maana cuni jirin dadna lama xiriiri jirin su'aalo ayaan isweydiinayay maxay ku dhihi doonaan maxaa lagu dhihi doonaa ma AIDS baad qabtaa lagu dhihi doonaa runtii 10kaas maalmood waxay iga badnaayeen boqolaal sano 10kaas maalmood waxay ugu dhacay murugo waqtin nolol sida ayaan ku noolahay waxa i soo wacay isbitaalkii waxa la igu dhahay natiijadu waa la helay waxaan ku dhahay hay ii sheego AIDS ma qabaa mise ma qabo waxay ugu dhaheen kuma sheegi karnaa noo imow waxaan ku dhahay ma imaan karo ii sheego AIDS ma qabaa mise ma qabo waxay ugu dhaheen noo imow gaariga ayaan furay anigoo yaqiinsan inaan AIDS qabo maxaa yeelay haddii aan aqoon way sheegi lahaayeen waxay ugu dhihi lahaayeen AIDS ma qabtid wuxuu leeyahay waxaan nafteeda ku dhahayay hadda xanuunku waa kugu dhacay waxaa asubtaa waa geeri noloshaydu way dhammaatay mustaqbalkaygu waa dhammaaday rajadii aan adduunyada ka lahaa way dhammaatay isbitaalka ayaan imaaday waxaa laygu dhahay dhakhtarka intuu ka imaanayo halka fadhiiso intaan meesha fadhiyay ayaan waxaan fiiriyay dadkii mase mid waa dhowla caddaanaya midna wuu qosliya midna وهالله لكن أنا وحنا نقضي قف ميت وقشن حرنول وحولي هي مقعي جاي يقول واقع هبل كالي صقل هن استاجي أنا قاعد جدية أنا قص الله أيام دكتور وقلي وحيقول هاي إن شاء الله خير أيام خنسا وحنقول هاي دكتور ثم بريكار أيام إمام ماشان وحنا إسكباري عذر كايدسكا وحنا اللي يقول هاي جوابت وحي كجرتها فالركا دكتور وحيقول هاي هذه هبل ميهات هاي وحنا يا وراقيه أيو قد قديه أنا waan fiirinay waxaan ka fakarayay marka uu ku dhawaaqi lahaa dilka toogashada ah waxaan soo xasuustay xumaantii aan sameyn jiray waxaan soo xasuustay saaxiibad xumaa waxaan soo xasuustay cumriga aan dayacay dhakhtarka wajigiisa ayaan fiirinayaa aniga Allah tala saaranaya aniga Allah baryaya aniga Allah toogaya si kadisa dhakhtarka ayaa soo fiiriyay way dhalacatay wuxuu igu dhahay بشاريسو نتيجة waxay noqotay negative ma qabtid cudurka AIDS-ka Allahu Akbar ma qabtid cudurka AIDS-ka ya Allah wana cusub oo soo baxay waa cumri cusub wuxuu leeyahay cumri dheer ayaa ka soo wareegay hadda dhacdadaas wallahi illa hadda hal salaadna iguma ayna dhaafin masaajidka salaad kaste masaajidka ayaan ku tukanayay salaad kaste masaajidka ayaan ku xifdinayay waxaan bilaaway nolol cusub Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu siiyay cumri cusub nolol cusub فرصة عصب أيها سي الله سبحانه وتعالى أتمك الله وأتمت الله حتى بلو حتى وقتنا لقى بلاو كدك فرصة عصب جالس عصب ما يقام مصيبة أي الله سبحانه وتعالى كابد بادي ما يقجر أيها ملك الموت كن صاعق مري ونفتك قاضي يقف نادو وأنا نضافي فرصة أيها تيسة والله محاك خسارة بدن بيتك الله سبحانه وتعالى هرتي صلتك إبر صفر محاك خسارة وين إن كتابك قال لك أسألك عن تبدي